wafdigan oo isugu jiray wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo safiirada wadamada Carabta ee Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne waxa ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne ee qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada. soo dhaweyn kadib wafdiga oo loo soo galbiyay gudaha magaalada Beledweyne ayaa xarunta maamulka gobolka Hiiraan kulan kula qaatay mas'uuliyiinta maamulka gobolka, saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Beledweyne. Ambassador Dayib Dubad Roble safiirka Djibouti ee Soomaaliya ayaa ka warbixiyay ujeedka ay Beledweyne ay u soo gaareen. ujeedaduna ay tahay bal dadkan walaalaha ayaa sidii loo garab istaagi lahaa, sidii loo gacan qaban lahaa. maanta waxa loo socday waxa weeyaan indhayo xaaladuhu sida ay yihiin magaalada Beledweyne iyo gobolka Hiiraan guud ahaan si kolkaana loo wixii tallaabooyin la qaadi karayo. sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay wakiilka jaamacadda Carabta ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Idris oo qayb ka ahaa wafdiga. نحن هنا اليوم للالتقاء بإخوتنا المسؤولين والمواطنين في بلدوين وفي منطقة هيران عموما، ونحن كسفارات عربية موجودة هنا في الصومال نمثل ما تبقى من سفارات عربية. duqa degmada Beledweyne Cumar Aadan Baadiyo oo qayb ka ah xubnihii soo dhaweeyay wafdiga ayaa goobtaasi ka hadlay. uu mahad celiyo halkan wasiirka xigeenka gaashaandhigga xildhibaanada ambassadorka Djibouti, ambassadorka Qatar, ambassadorka Masar, safiirka Suudaan, العرب. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax oo la hadlay warbaahinta ayaa kaga mahad celiyay wafdiga booqashadii ay ku yimaadeen Beledweyne. sidoo kale waxaan rabaa in halka ugu mahad celiyo waxa jooga maanta wakiilka jaamacadda Carabta Soomaaliya u fadhiya, safiirka Djibouti, safiirka dawladda Qatar, safiirka dawladda Yemen, safiirka dawladda Liibiya, safiirka dawladda Masar, walaalaha nahay safiirka dawladda Suudaan iyo marti sharaf badan. waxa kale oo jooga wasiirka Soomaaliyeed iyo xildhibaanada Soomaaliya. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Xasan ayaa booqashada wafdigan ku tilmaamay mid taariikhi ah, waxaana ay xariga ka jareen mashaariic horumarineed ee Beledweyne laga hirgeliyay. walaaladeena safiirada ah ee runtii jabiyay albaab aan horay loo soo jabinin oo ahaa inay safiirra maanta tiradan leh oo ka socda intii safiirra ka joogtay dawladaha Carbeed Soomaaliya inay isugu yimaadaan Beledweyne. waa arrin taariikhi ah, mahaddeedana waxaan u celinaynaa la kasakow walaalkeen Dayib. Cabdi Weli Xuseen Tawakkal, Telefishinka Universal, Beledweyne.